أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي وأحبابي جهة كستا وأنا غلا حريريسان meel fog iyo meel dhowba, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. intii muddo aba waxaynu wadnay aqoon kororsi aynu ku xoreynayno maanka iyo maskaxda, oo aynu ka xoreynayno waxyaalahan suurtagalka ahayn iyo khuraafaadka, hadday dhinac diineed tahay iyo hadday dhinac cilmi tahayba. gumaysigu waa laba noocood, waa ogtihiin, oo mid muruqa iyo cadka la gumaysto iyo qofka bini aadmiga xooggiisa, midna waa mid maskaxda iyo maanka qofka bini aadmiga laga gumaysto. tan maanka iyo maskaxda qofka bini aadmiga laga gumaysto ayaa ugu daran, oo sida xayawaanka loola dhaqmayaa haddii maskaxda uu gun ka noqdo ruuxa bini aadmiga. intii muddo aba waxaynu ka hadlaynay suurtagal ma tahay in makhluuqan inala nool iyo jinka iyo sixirka iyo ish iyo waxaas inay qofka bini aadmiga maskaxdiisa masaabiir iyo midiyo iyo boco inay dhex dhigi karaan. taa waynu ka qanacnay, waxaa inaga qanciyey doctor Gaboose, jazaahu llahu khayran. in badanna waxaad tiifiyada ka aragtaan dad oo caamo ah oo la leeyahay maskaxdooda midiyo saawiraan ka soo guray. waxaa kaloo in badan iyadoo la leeyahay wadnaha caagado iyo baca xidhxidhan iyo masaabiir iyo waxbaan ka soo guray. tiina waxaynu la kaashanay aqoon-yahankii maxamed xasan ee aqoonta u lahaa wadnaha iyo wixii ku xidhiidha. waxaanu inoo sheegay inaanu wadnuhu qaadi karin qadar yar iyo dhibic yar oo xinjir ah. haddii wax yar oo siyaado ah ama neef yar ama hawo yari hadday sistamkaas soo dhex gasho, qofka bini aadmigiiya ama koomuu gelaya ama faarij baa ku dhacaya ama uu dhimanaya. maanta waxaan dalbanay doctor maxamuud, doctor shiine, jazaahu llahu khayran. aqoontiisa dhakhtarnimo ilaa iyo 30 sano iyo dheeraad bay ku siman tahay. intaasoo digriina uu ku wataa aqoonta cilmigan dhakhtarnimada. waxaanu si fiican ugu takhasusay aqoonta indhaha. in badan ama dadka qaarkood waxay arkaan iyada oo dad khuraafaadla ah loo tago oo dabadeedna indhahooda la leeyahay masaabiir baan ka soo guray, ama indhahooda la leeyahay inta carabka saa loo mariyo cantoobe ciidaan ka soo saaray, ama inta indhahooda carabka saa loo mariyo dixiriyaal baa ka buuxa oo kuwaa dixiriyadii oo faraqa loogu soo rido dixiriyada. ayaa in badan haddaydnaan aragnaa adduunyada ka shaqaysiiya, waliba dalkeenna, oo dad badan ay leeyihiin islaan hebel, islaantii hebel ayaan u tegayo carabkuunbaa iisha saa ii marisayoo sacabkaa ciida baa iiga soo saartay, ama sacabkaa dixirigaaba iga soo saartay, ama wax la mid ah. maanta waxaa inoo martiya doctor maxamuud, jazaahu llahu khayran, oo khibrad dheeraada u leh, oo aynu uga martinahay bal inuu inaga qanciyo. indhuhu saxar ma qaadi karaan, iska daa ciid iyo maxaanku idhaha dixiri uu qaado, mana qarin karaan. 10 xabo oo dixiriya indhuhu ma qaadi karaanoo ma qarsan karaan. waxaa kaloo jira dawooyin fara badan oo si qaldan loo isticmaalo, ama dhiiqooyin ha noqdo ama kuwo lagu dhibciya ha noqdo, oo ruuxu intuu farmasiigun iska aado dawadii indhaha si uu yidhaahdo, oo dabadeedna aan xanuunkiisi iyo noocuu yahay iyo waxaa waxbaba aan eegin. xanuunka indhaha ku dhacaana waa 100 nooc weeye, oo dawooyinka qaarkood baaba ku noqon kara xanuunka laftiisa cadow ku noqon kara. marka noocaa haddii alla yidhaahdo sida cashwaa'iga ah ee bilaa nidaamka ah ee indhaha loogu isticmaalayo inay munaasib tahay iyo in kale,
indhuhu waa xubin qaali ah dareemayaasha shanta ah ka ugu qaalisan weeye dareemayaasha ilaahayna siiya shanta ah ka ugu qaalisan ilaahayna way inoogu abaal sheegtay subxaanahu alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn qofka bini aadmigiihi waaxyaha kaloo dhan wuu adeegsan karaa hadduu indhaha qabo laakiin qofku hadduu indhabeelo wuxuu u baahanayaa mar walba ruux labaad oo caawiya dhageeluhu isagaa iswadi kara haddii urtu kaa tagto waad iswadi kartaa hadduu dhadhanku kaa tago waad iswadi kartaa dadka lagaa dhex saari maayo laakiin haddaad dhaayaha iyo indhaha beesho mar walba waxaad mashquulinaysaa ruux labaad ama ha kula dhasho ama aada dhashid ama aada baridid ama aada kiraysatidba waa xubinta ugu qaalisan inta wejiga ku taalla marka maskaxda gudaha laga reebo marka xubintaasi xubin lagu safaadi karo ama dawooyin aan la hubin oon dhakhtar kuu qorin lagu shubi karo ama dixiriyaal laga soo leefi karo runtii ma ahan waa xubin qaaliya oo ilaahay inagu galladay subxaanahu wa tacaala in lagu cayaaraana ay mamnuuc tahay marka doctoorka waxaan caawa insha allah inooga warramayaa waxyaalaha indhaha waxyeela ama nuurkooda hoos u dhima ama haddii alla yidhaahdo indhabeelkaba keena inuu aqoon guud inuu inaga siiyo baynu ka rabnaa insha allahu tacaala ilaahayna cilmi naafica oo ilaa iyo qiyaamaha la intifaacsado ilaahay carabkiisa ha ku beego marka waxaynu ka dhegaysan doonaa doctoorka khayr allaha siiye aqoontiisa guunka ah ee da-da weyn ee uu khibradda u leeyahay inuu bal haddii alla ka dhigo uu wax inooga sheego بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه آمين رب العالمين إلهي عافمات بوحو كامل هنا وضصيه نور يأرق وناسنا إلهي نوضصيه إنه وحويان حبناها أقول قال سمرك الله إيغو dareemayaasha aan u leenahay halka ay ku yaalaan iyo qaabka u shaqeeyaanna waa qaab qofku aada ula yaabaya xaqiiqa ahaan indhaheena markaad aragto xajmigoodu ma weyna aada buu u yaryahay qafas bay ku jiraan xagga sare laf baa ka xigta xagga hoosena laf baa ka xigta dhinacaan laf baa ka xigta dhinaca laf kale ka xigta xagga dambena laf baa ka xigta jiho walba laf baa ka xigta ilaa jihadan soo qofku wax ka arkaya mooye jihadaana dahaadh baa saaran oo baalka marra furmaya marra xidhmaya ayaa saaran oo ilahay ugu talagalay ilbiriqsiga baalka xidhmaya furmaya shaqo badan buu qabtaa indhaha ayuu qaleelka ka ilaaliyaa qofku waxaa la yidhaha maalintii 16 kun oo jeer ayuu ilbiriqsadaa 16 kun oo jeer ama dadka soo jeedkoodu badan yahay 20 kun oo jeer baa way gaadhaanba qofka haddaana duhurkii seexan oo kale ilaa 20 kun oo jeer bay gaaraysa ilbiriqs gaaraya ilaahay indhaheenna wuxuu ugu talagalay ilmo dufan leh oo borotiin leh oo isha iyo baalka kale ilaalinaysa ilmadaasi way dhammaataa markaa salaas bax soo kacdo oo labada taagan tahay way yaraanaysaa waliba dadka indhaha ka shaqeeya dadku way kala duwan qaarna xoogay ka shaqeeyaan wastaadada iyo maaragtay nijaarka iyo ragga muruqmaalka indhaha jirkay ka shaqeeyaan laakiin ardayda dadka wax akhriya dadka ka shaqeynaya waxa ahaan yara mechanical-ka indhaha aada ugu baahan waxa weeyaan haddii labada duhurnimo la gaadho indhaha ilmadii dufanka lahayd ee borotiinka lahayd ee nafaqada lahayd ee xalay la soo saaray way yaraanaysaa waliba dhallinyarada hadda xafiisyada ka shaqeysa kombiyuutarada ku shaqeeya ayaa ugu sii daran maalinta dhan kombiyuutar ku eegayaa marka waxba laga yaabaa isagoo intaan 12 la gaadhinba 12 inay ka dhammaatoba ee dhaca karta marka maxaa imanaya waxa la yidhaahdo jafaaf dry eye jafaafku waa waxa ugu badan ee dadku noogu yimaadaan dhakhaatiirta indhaha sababta loogu tago ugu badan waxa weeye indha qallayl dadkii ay ka cabanayaan marka
تعالمت الإسلام كحين نوت المام يسا قف الظهر كأنه ساعده قيلوا فإن الشيطان لا يقيل هذا الظهر كيس حتى جفاف كافرا بدن واتكا مارتي ما كان قال يسايو أنت تردو ساعة تردو أيا المدي الدفن كله هذا الصوص صاريا عنده إنه أنت هردان بصوص صار المدي الدفن كله بروتين كله مركا أدوكو مرلبات لغو soo saaray ilmadii borotiinka leeyahay dufanka leeyahay ee ishay baalka leeyahay ay casarkii soo toostaa casar ilaa 9 habeenimo waxa tahay free oo inaa waxa weeyaan full weeyihiin maartay dufankii loo baahnaa way leeyihiin borotiinkii loo baahnaa way leeyihiin isma xoqayaan isma dareemayaan wixii 10 ka dambeeyana wax bilaabanaysa inay yaraadaan ilmadii dufanka leeyahay yaraanaysa marka waxa bilaabanaya qofku inuu dareemo inda qaleyl inda isku qabqabto qaleyl uu dareemo ilmo uu dareemo ilmada badan ee imanaysa waa jawaab maskaxdu ka bixinayso marka inuu qalalaan maskaxdu amar bay bixinaysaa laba qanjiro halka ku yaalo oo lakrima garan la yiraahdo oo iyagu ilmo caadi ah soo saar ilmada caadiga ah ayaa biyo badan soo deynaya marka qofku biyahan badan way dhibayaan indhiisuna way qalalan yihiin marka qaleelkii waxa uu keenay biyo badan inay indhihi yimaadaan ciladaas waa cilada ugu badan ee dadku dhaqaatiirta ugu tagaan waxaana dawiyay rasuulka kaleey salaatu salaam markuu na faray duhurkiina inaan seexano habeenkiina naga reebay inaan soo jeedno xilliyada dambe cisho wax ka dambe la soo jeedo naga reebay marka waa sunne maartay caafimaadka indhaha qayb weyn ka qayb qaadanaya sunnaha kaliya qofka raaca waxa weeyaan caafimaadkiisa indhuhu wax weyn ayay runtii ay ka taraysaa taas waa qodob anigu qodobadan doonay waxa weyn aan ka hadlo waxyaabaha ugu badan ee dadku dhaqaatiirtu ugu yimaadaan aan cudurka ahayn ama laga horteegi karo marka in qaleelkaasi wuxuu keenaa inuu markay qalalaan wuxuu keenaa indhihii marka hore ishii baalkii maadaama ay 16 kun oo jeer bay isxoqayaan waxa weeyaan inta ay ilmada dufan kale borotiin kale ay jirto isma dareemayaan waa lubricant taas oo dhaxaysa isma taabanayaan isma dareemayaan ama markay dhamaato isxoqayaan markay isxoqaan nabareer baa sameysmaya qofkii saxaro badan buu dareemayaa indhii baa casaanaya midabkooda waa isbedelaya finan baa marka dambe ka soo baxaya meelihii nabarada yar ay ku sameysmeen jeenis raacaya finan baa ka soo baxaya baalasha ka soo baxayaan indhaha guruxna wuxuu noqonayaa gurux aad u cas yuu noqonayaa marka qofkii waxa ku bilaabanaysa marka wuxuu argiisa inuu hoos u dhaco maarta uu dareemo koornaysa qaybtan madow oo maarta muhiimka ah u dhan daldalaacday ayaa laga yaabaa marka waa mushkilad aan jiri jirin berigii hore oo hadda soo korodhay waxaana soo kordhiyay waxa weeyaan isticmaalka badan shaashadaha iyo qaabkii hurdada loo seexanayo isbedeshay oo qofkii laga yaabay habeenkii inuu xilli dambe gaadho 12ka kooda uu gaadho duurkiina aanu seexano kale marka dhalinyarada aad waxaan kula talinayaa waxa weeyaan in dhaqanka la iska bedelo oo qofku habeenkiina xilli hore uu seexdo duurkiina hadaanu shaqeyno oo firaaqo leeyahay inuu seexdo saacad ama saacadii badh wax weyn bay qofka maskaxdiisa taraysaa indhihiisana taraysaa waliba waxa la ogaaday qofka fahamkiisa markuu duurkii seexdo kor buu u kacaa fahamkiisa gelinka dambe kor buu u kacaa haddaan laakiin duurkii seexanin fahamkiisa gelinka dambe wuu hooseeyaa waxa la mid ah qofka hadduu barqada 12 kale jaanis helo seexdo way ku filan tahay nus saaca ku filan dadka qaar 10 daqiiqo ku filan laakiin waa in qofku time yar oo helaa oo kaga faa'iideystaa qodobka labaad doonayaan ka hadlo waxa weeyaan mashaakilka ugu badan ee dadku noogu yimaadaan ah biyaha indhaha dila waa maqasheeno waxa la indhaha biyaha ku furma biyahaas indhaha way dilaan waa run biyahaas way jiraan xagga dambe indhaha kaga jiraan ma soo baxaan laakiin markay biyahaas bataan qofka xeelkii dabka qaadayay ayay dilaan indhaheenu qaabku u samaysan waxa weeyaan ishu waxa ka dhigan tahay sida leerkan oo kala qiyaastii guluub iyo wire iyo mashiin soo maaha ishi waxa weeye waa guluubkii wire-ki waa xidada optic nerve la yiraaho oo dabka qaada halka ugu dambaysa waxa ku jira centerka aragga qofka haddii halka bud lagaga dhufto
هروك إنه بيليا هوايو سنتر كأرجع أيو سامينيا إلهي وحقوق لي سنتر كأرجع ما دام هديوها قاعدين قفك عنه وساوكو إنه بيليا ميل مهمة وهالكا كوبيجان غدال كذا مو كوبيجان أو سيفود أنا بحب أقول لعكارين تبادن ولي والله لفتنا هالكا وكادك أدب وكادك تاي لفتنا غدالك هالكا وكادك تاي ماش هالكا كوبيجان سنتر كأرجع لفتنا أدب وكادك توه نقص ما جبته ميلها كلام مرك الله يجا إذا كادك وايو إلى بهالكا كو إلى علنا يا سنتر كمهم كا مركا إنه وحوش قيان سلير كاسكر وقلوب يواير يمشين إشي يحيدك يو سنتركي أرجع كيني بيها هالستاهي ما صابحان ولقود هذا بقى شباب إنها بيها كدلي مركا تراهدو إنها بيها كفر كادلي كامي يلي يقول ولي جايب إنها يقوم المنبا ما هو الميانبا هذا كانت بيها مركا بيها سوى بيها حاجة دم كل جرا إيش كل جيران حيد كدم بيد لها مركا بطان وحليهين عبرادي لين كلا دون طبعا شاني طبعا لباتن إلا أفر لاتن وعادي هذا أفر لاتن كور دافان صدق مركي قاعدين قفكم ما دريميو لكن حيدك هو دمريا وداوميا شنو صدق هذي قاعدين ما دريميو حيدك هو داوميا أفرت هذي قاعدين ما دريميو حيدك هو داوميا قفكم مركا سنضفر بدن مركا بريشر كاس وجرو مركا دم حيدك هو دمريا قفك واحد دريميا حوغي أرجس إنه هو صدعي دكتور كو إيمانيا وحلا مراد هلا قرا ولا إيه يا وحلا إنها واو دنتين با بقول كيف شان يسقاشن وايد دنتين شنو بكونون مركا بيهاسي وبيا أن لوغان كرين أنا كم لوغان كرين عن قبيل كله إن لا إيجو مويه أو دكتور إيجو مويه لوغان كرو قف لوغان كرنا مجرو إلا دكتور أو جاكرايو إيجو وبيها عبرو أو حدد ضبارو ولو حدد كمرك لا إيجو أيا لوغانيا marka taa waxaan kula tan lahaa dadka waaweyn qofka haduu 40 ba gaaro inuu iska jeegarayo oo sanadkii ama labadii sanaba hal mar la eego si loo hubiyo biyahaas inay ku soo socdaan kale dhakhtarkana ku sheegi karo ku oran kara waxa weeyaan sanad kadib aad u baahan tahay in lagu celiyo lagu baaro 6 bilood kadib 2 sano kadib 10 sano kadib dadka qaar baa leeyahay adigu inaa wasfiicayna waxba ma baahnidba marka jeekinka ayaan la moogaan waayo waxa noo yimaado maalin walba maantana ugu dambeysay hadda galabta ay ugu dambeysay waxa noo yimaada dad iska wanaagsan oo xooga laakiin indhahooda ay dhinteen weligay indhahu ma xanuunin laakiin xanuunkaas 30 sano hayay inta badan biyuhu markay indhaha ku furmayaan habeenay maalin kuma dilaan aragga laakiin way soo jeetaan 10 sano 20 sano 30 sano iyo soo jiraan marka qofku waxa laga yaabaa 30 sano kadib inay dhatiraan markuu ku yimaado waxa kale weliga indhahay waxba kama dareemin wana xooga oo 60 jir ama 50 jir macdaalka waxa arkaa dhalinyaro hataa marka qaar loo arkaa dhalinyaro yar oo xooga maanta nin aqalayno dhalinyaro aha 30 jir buu ahaa laba indhood biyo kaga furan 95 way dileen labadaba marka biyahaas waa waxa ugu khatarsan ee runtii dadkii de maartay qofkii iska socdo aan waxba dareemin leeyahay waa biyo ka dilay marka horta biyaha la iska jeegarayo goobaha maartay qofku inuu maartay sanadkii hal mar ama labadii sano mar tago isjeegarayo waa muhiim jiddan arrinkaas waa inuu waa qaale inay meel cidla ah ay kaaga baabaan waa laga wanaagsan yahay marka biyaha laga hadlayo aan ka hadlayno waxa weeyaan waa biyaha khatarta ah ee xagga dambe ku jira ee aan soo bixin biyo labaad baa jira oo soo yara taabto ah biyahan indhaha ka imanaya biyahan markay badan yihiin waxay ka yimaadaan qanjidha halka ku yaala halka wax ku yaala laba qanjid oo la yiraahdo lacrimal gland waa kuwa qofku markuu ooyo biyaha badan soo daayo weeyaan iyagu biyahoodu waxa way biyo aan dufana lahayn borotiin lahayn biyo caadi ah marka shaqadii la doonayay ee ahayd in ishii baalka kala aalay ma kala aalanayaan laakiinse way maartay way qoynayaan qofka laga yaabee inay dhibaanba mar walba ka tirayo iska masaxayo oo tiro marka maxay ku imanayaan kuwaasi marka kuwii dufan kala la waayo ayaa kuwa la soo deenayaan iyagu dhibaato ma laha hadduu qofku hurdo fiican seexdo way iska baabaayaan kuwaas ama isticmaalka indhaha shaashadaha faraha badan oo iska yareeyo kuwaas inta badan inta lama arko laakiin mushkiladoodu waxa weeyaan waa wax ugu badan ay dadku ay ka cabanayaan
biyahaasi waliba qofku markuu weynaado biyahaas way yara bataan waxa laga soo daayaa laga maalgalaan indhaha meedhan $2 ku yaala ay galaan marka laba qoloba biyahaas aad bay u bataan ilmuhu markuu yar yahay daloolkii $2 ilmadu galaysa ayaa cidhiidh ah markay ilmadu yara badato daloolkii wasira ma galayaan qayb ba galaysa qaybna way soo daadanaysaa marka ilmo yar oo indhaha ka ilmeynaya wax dhibaato ah ma laha daloolkiis baa cidhiidhiya markuu soo koro oo daa soo weynaato daloolku la weynaanaya uu furmaya caadi u gali doonta ilmadii laakiin hooyooyin fara badan qaar baa ka soo safra laascaanood ama miyiga fog ka yimaada ilmahan indhihiisa ilmeynaya kaliya uga yimaada marka qaraabadii hal la ogeysiiyo ilmo kaliya hadday tahay dhibaato ma laha haddaan xafasho lahayn oo casaan lahayn oo cuncun lahayn waxa weeyaan ilmadii halka laga soo saaray indhaha meedeysay meelahay galeysay un baa cidhiidh ah marka ilmo markuu soo koroba caadi soo noqonaya markuu soo koro waxa laga yaabaa sanad 2 sano markuu gaadho toobadii oo furmaysa caadi u galaysa marka uma baahna in loo safrana uma baahna maartay annaga waxaan filayaa maanta dadka noo yimaado 30% hooyooyin bay u badan yihiin ka cabanaya kaliya ilmahaygu indhihiisa ayaa ilmeynaya marka ilmadaasi wax dhibaato ah ma laha marka 3 nooc oo biyaan sheegnay indhaha gala mid waxa weeyaan waa biyaha khatarta ah ee la rabo in la iska baadho xagga dambe ku jira kuwaas waa khatar weeyaan kuwan waxa weeye kuwan dufan kale ee borotiin kale ee qofka u wanaagsan ee ilaalinaya oo iyo waxa soo saara xirribaheena gudahooda laga soo saaraayo maartay qanjidha yaryaro yaa soo saara halka ku jira qanjidhaha soo saaro iyagu waa faa'iido badan bay leeyihiin kuwa saddexaadna waxa weeyaan kuwa halka laga soo saaraya maartay iyagu qudhooda waxay ka qayb qaadanayaan meedhista indhaha marka dabeysha iyo siigada iyo saxradu ay ku dhacaan meedhistaas ka qayb qaadanayaan qodobkii sheekhu sheegayay ayaan rabaa halkan wax ka idhaahdo isha haddii saxar yar ku dhaco oodan arkaynin saxar aad u yar horta ma xamili karto hadday se dhacdo inay saxaradan aadka usii yaryare maartay dabeysha iskala socde marka daaqada la furo aad arkaysa inay saas ka socdaan kuwaas indhahayna way galaan laakiin waa la ururiyaa biyahaasay raacaan biyahaasaa maydha biyaha kor ka imanaya ayaa maydha halkaas ku uran qofku marka markuu saa yidhaahdo inuu xafasho yar meelaha ka dareemo xafashada yar dareemaysa waxa weeyaan waa saxaradii yaryaraa ee ilmada soo raacay indhaha ku dhacay oo halkaas soo ururaya waayo waxay indhuhu doonayaan inay halkaa ka saaraan tuubooyinka laga saarayo ilmada inay raacaan laakiin maadaama yari waaweyn yihiin ma raaci karaan tuubadii halkaas ku hakanayaan marka subaxii qofku waxa laga yaabaa inuu meelaha subaxii ka dareemo wax yaro adag waa xafasho yaro kala ah waa saxaradii shalay galay maartay oo meesha ku ururay ama qofku maalintii markuu shaqeynayo kale oo suuqa marayo dabeel badan ku dhacaysa cabaar duhur markii la joogo dareemo meelaha inay cadaan yar ka soo fuulo yaa laga yaabaa marka waa saxarada yaryar aan maartay ilmaaragtada ah oo aan qofku waxba yeelin laakiin wax inta ka weyn oo ishu qaadi karto ma jirtaba dhibcahan indhaha lagu dhibciyo 2 dhibcood ishu ma qaado dhibic kaliya qaada hal dhibic kaliya markaan saa ugu dhibciyo hal dhibic waa ku dhacaysa mid labaad ma qaadayso tay loo soo daadanaysa marka meel ay wax ka galaan ba ishu ma laha dad badan arkaysa wax ku leeyihiin ciid bay iga buuxsantay oo waxba laga geliyo waxa laga shubo xagga dambe maartay iga jiraan marka ishu meel wax inta arkayso meel ka hooseysa wax ka galaan ma jirto beesh xag markaad eegto halka ku egtahay xag markaad halkaas ku egtahay hore waad arka marka meel ay wax ku dhooman karaan ma jirtaba baalka maartay yaan ku dhooman karin oo qofku markiiba dareemayo ishu uu marmarayaayo waxaan dareemayaa taasina waxa weeyaan ma biyaha iyo arrimaha ku saabsan qodobka kale rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan isticmaalka shaashadaha faraha badan ee nagu soo kordhay sanadahan dambe shaashadaha la isticmaalo waxa u badan mobilka TV-ga tablet-ka bahalkan balbalaaran ama iPad-ka la yiraahdo iyo kombiyuutarada dhammaantood waxay leeyihiin cillado isku dhow oo fara badan waxa la yiraahdo computer vision syndrome xanuunka laga qaaday isticmaalka fara badan ee kombiyuutarka cilada koowaad waxa weeyaan qofku waa anagana wuxuu u baahan yahay inuu maalintii 16 jeer ilbiriqsado saacadii 1000 jeer bay noqotaa laakiin markuu mobile eegayo
ama computer eegayo ama TV daawanayo waxa weeyaan wax yaraanaya ilbiriqsigii wixii uu aad u xiiseynaya oo ku dhagagayaa marka u qaybi waxa weeye 60 daqiiqo markaad u qaybiso kun maxaa noqonaysaa daqiiqadii waxa la rabay qiyaastii in ay noqoto Allahu musta'an ya ما كونوا قريبين لحظة قريبة ها خلاص لحية تبنجر أنا الدقيقة دي وين برمنت لحية تبنجر بالفين نقط لكن واحد يا قفك 5 6 أفر دقيقة إنه أنا أسكو قوام با ساس ما مركا تاسو حكينيسا إن هنا قلالان oo jafaafkii aan hadda ka hadlayay inuu soo degdego oo halka qofku bana 8 saac ama 10 saacadood qofku inaan indhihiisa marka caadi aan dareemeyn markii uu dhaqso u dareemo ayaa laga yaabaa taas oo qodob qaleelka badan wuxuu keenayaa marka inay qaybta madow dildilaacaan inay inflammation yeeshaan inay casaan far badan yeeshaan inay marka dambe maarta xanuun badan ay keenaan qodobka labaad ee muhiimka ah استعمالك شاشة هبينك وكانوا حويان وهرد الآن دد بدن واحد جد دليرة وهبينك إنترنت كأدو استعماله قفكو مركو أدو استعماله إنترنت كهبينك هردو وكتجيسه وحنوي هذا دليرة تراها أنو هبينك مو بس سحنا ما بريان سحنا أفرتان سحنا أما سدحتان سحنا أما لوضان سحنا وجوكتان هرد الآن تاسع مركو حكيت اللحية 8 عذر وهذا اللي يذكر رحسين هاي 16 كم إني هردلانته قريب كتاعي مركي يراته قفك إنه هردي سيراته قفك حلي 6 ساعة هردو باهي هبينكي يمانت مركي لسكو درو 6 ساعة إلا 3 ساعة هبينكي يساعد مالنتي مارتي وسدونا سان قفك هدو حتى 3 ساعة هدوها لو اسكا معقول لكن قفك مركو سيحدو هبينكي 12 يوحي كدنبيه هردي سعاديات بيرانسا xanuunada marka laga qaado hurdalaanta waxa ugu horeeya macaanka kamid ah waxa kamid ah dhiig karka waxa kamid ah madax xanuunka faraha badan ee joogtada ah dad badan ayaa waxay ka cabanayaan madax xanuun joogto ah madax xanuunkooda haddii hurdo wanaagsan helaan iska baaba'aya waxa kamid ah indha xanuunkan aan ka hadlayno indhaha qalalaya waxa kamid ah neerfaha waxa kamid ah waalida waxa weeye hurdalaanta waxa keentaa waali bay keentaa waxa kamida mowtul qaflaha waxa la tijaabiyay nin Chinese tijaabiyay waxaan tijaabinayaa bal intaan hurdalaan noolaan karo marka kafee badan buu cabaa khamri buu cabaa uu soo jeeda 12 casho ay ku dhinteen qofka daana saxanin qofkii ugu badnaa ee soo jeed habeenay maalin soo jeeday qofkaas la hayo 12 casho iyo 12 habeen aan daqiiqad saxan markii dambe uu dhintay marka mowtul qaflaha way keentaa waxay kale keentaa hurdalaantu wada xanuunka keentaa difaaca qofkuna aad ba hoos u dhacaa difaaca qofku ee cudurada ka difaacay isla aad ba hoos u dhacaa arrimahaas oo dhan waxa keenay hurdalaantana waxa keena isticmaalka badan ee shaashadaha la isticmaalayo waxa kale habeenkii marka lagu isticmaalayo shaashadahan meel madow waxa ka soo baxa waxa blue light kaas waxa weeyaan shabakada dambe ayuu dhaawacaa oo shucaaca ku fura marka arrinkaas soo noqnoqdo waxa weeyaan dhaawac baa gaar marka dambe ama waxba laga qaban karin marka qaarkood oo qofka laga yaabo saas aragaysa inuu ama ku indhabeelo ama ku tagaba waxa kale kamid ah isticmaalka badan ee shaashadaha carruurta yaryar haddii loo sii daayo aragooda fog aad ba hoos ku dhacaa waa ogtiin waxa weeyaan qofku wuxuu leeyahay arag fog iyo arag dhow ilmaha yar markuu soo korayo waliba 6 sano ugu horeysa 10 sano ugu horeysa hadduu aad shaashadaha oo isticmaalo eegida uu eegayo aragii dhawaaya xoogaysanaya laakiin fogaa baa lumaya marka ilmahaas wuxuu ku qasbanaanayaa inuu muraayad qaato muraayada la'aanteedna aan saboordi wax ka arkin waxa ugu badan marka keena in aragga maartay fog uu yaraado waa isticmaalka badan ee shaashadaha caalamka waxaan ka mid nahay wadamada ugu fiican ee maartay ugu indhaha fiican ma dhinac ka mid nahay laana waxa weeyaan wax la qiyaasa Afrika dadka muraayadaha qaata waa 10% kaliya halka Yurub iyo Mareykan 70% ay qaataan ama 60
endogenana boqolkiiba 85 ay ka qaataan marka qayb badan waxa ka mid ah ilmuhu markuu yar yahay isticmaalka badan ee iPad-da hadday soo badatay runtii waa arkaysaayo anagu iskuuladana screen baan ku sameynaa iskuulada dadka ladan carruurtooda ay dhigtaan boqolkiiba 30 boqolkiiba 35 ayaa muraayada qaata ama u baahan inay muraayada qaataan oo marka teamka loo diro waxay soo saaraan boqolkii ardayba 30 35 iyo ka soo saaraan u baahan muraayada ama qaataba marka ama iskuulada dawladda dad yartu dhigato boqolkiiba 5 boqolkiiba 7 yaa la soo saaraa marka taa maxaa keenaya carruurtan dadka ay dhaleen aad waxa ugu badan isticmaalka badan ay isticmaalayaan TV-ga mobilkii shaashadihii kale iPad-kii game-kii marka carruurtan taa waxaan ku talin lahaa in laga joojiyo oo loo ogolaanin inay isticmaalaan ururka dhakhaatiirta carruurta ee Mareykanku sanad walba intaasoo digniinood buu ka soo saaraa wali carruurta yaryar laga ilaaliyo maartay isticmaalka shaashadaha oo yaa loo dhaweyn marka in aad looga ilaaliyo oo ayaa muhiima ilmihi iska ciyaaro waqtiga firaaqada uu leeyahay ha ciyaaro ha jimcisto laakiin waxna dul fadhiyo dhibaato badan ayay gaarsiin kartaa qodob kale oo ka hadlay waxa weeyaan sanadahan dambe waxa soo batay xanuunka la yiraahdo macaanka ama maartay sonkorta xanuunkaas wuxuu keenaa dhibaato fara badan oo xagga indhaha ah haddii qofku aanu iska kontroolin macaanku wuxuu ka mid ah cudurrada maartay runtii fadhiga badan iyo cuntada badan iyo socod la'aantu ay qayb ka yihiin waatuu maalintii ugu dambeysay ka hadlayay Dr. Xuseen Xoog haddii marka kontroolkaaga aanu fiicnayn wax laga yaabaa inaadan xanuun kaar ka dareemin macaan kaar badan ma keeno laakiin kontroolkaaga haddaanu fiicnayn 10 sano 15 sano kadib indhaha xagga dambe dhiig baa ku furmaya xiidadii dhan baa dhiig ku furmaya qofku indhaha beela laga yaabaa inkastoo alxamdulillah hadda wax laga qabto oo irbado maartay wax laga qabto la keenay iyo laysaro wax laga qaban karo laakiin wax kasta waxa ka horeeya ka hortagga oo qofka hadduu macaan leeyahay inuu aad u kontroolo sonkortiisa oo uu dhakhaatiirta la xidhiidho mar walba isku dayna sonkortiisa ay xagga hoose jirta ayaa muhiima waxa kale muhiima oo macaan keena waxa weeyaan qofka adimadiisa dhiigga ka xirma marka in la gooyo laga yaabo adankiiba inuu gangrene ku dhaco oo dhinto oo saa lagu gooyo ama keliyuhu inay shaqada joojiyaan oo qofka la yiraahdo keliyuhu way fadhiisteen dialysis joogto ah in la meeyo u baahan yahay keliyuhu intuu nool yahay inta keli looga gelinayo marka waxaas oo dhan wax laga hortagi karaa waxa weeyaan qofku inuu macaanka kontroolo aad u kontroolo runtii inaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii wax su'aala jiraan insha allah su'aalaha u doon doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاه الله خيرا وحبذن بدن بعد نو فائديسي إلهي عمرك هكو بركيو عقلك الله هكو بركيو سؤال بدن ومعقول أيها هل كان يهوري الله وحانا دريمي يا سدا أدنين يسين هو ربحينته هو الدكتور كوي نسيني هل كان دقيستي هورفردي وحوي الدكتور بريدو عندها مية وحوترتا وسؤال شكوات سؤال اللباد وقت الظهر كي قلمدو عندها مية هوسو دكتا وحمية يا شعرك كذا بسم الله الرحمن الرحيم أرتوح الجراء وحياة بدنا عن scientifically لوجو آمنين أما عن الإمبارس كفرنا لوجو سمين علمك إياه هذا الكلام يكل دوينهن لكن علم بارس تبارك الله سماه وحي فقدس الأركو ولا أنت سقف واحد لقول تجابي for example بقول قف بريد جوكتو استعماله بقول ما استعمالين إنه هذي والله باري مركون والله سيب باري مركون والله باري فرق أنت على يعود حي مركل اللي هذا والله أنا كرا بريد وحبي يشاء ما يشاء لكن سيدا عادي جاه وحويان بريدو دوا دفن ويان دفن عادي ويان marka wax ay si gaar ah indhaha u yeelayso bal dufanku uu fiican yahay indhaha aad ugu wanaagsan yahay vitamin A-ga indhaha vitaminada ugu muhiimsan ay ku shaqeeyaan waa vitamin A-ga vitamin A-gaas waxa laga helaa dufanka hilibka
beerka iyo kaaroodka yaa ugu badan marka dufanku wax weyn ma yeelo indhaha wuu wanaagsan yahay bal waqtiga abaaraha marka la joogo waxa weeye dadka indhaha nabarro badan baa kaga samaysma oo reer miyigo kale waqtiga abaarta aad bay iyagoo indhaha nabarro badan kaga samaysmeen oo qaar way u indha beelaanba ayaa yimaada marka dufanku indhaha aad buu anfacaa wuu wanaagsan yahay waxa ma yeelo inkastoo dad badan ay ka qaaliyaano dhakhaatiirtu qaar arrimahaas isbedbedelayaan berigii hore waxa weeye dhakhaatiirta waxaa la odhan jiray dufanka iyo hilibka iyo khatartooda aad baa looga sheegay laakiin marar dambe waxaa la ogaaday in khatartan badan la sheegaya aanay wax weyn ka jirin yaa la ogaaday cholesterol badan xataa laga sheekeynayo in wax weyn ka jirin dad badan baa hilibka kaga caaganaado yidhi cholesterol baan qabaa hilib uma dhawaanayo laakiin hilibka geeloo kale cholesterol ma laha wax kale laakiin waa xaqiiqo ah hilibku inuu yahay sayid dacaam cuntada ta ugu wanaagsan ugu faa'iidada badan ugu nafaqada badan jirkeenna marka indhaha badhidu horta waxba ma yeesho tan kale galmadu dee qudheeda looma hayo wax daliila inay indhaha wax yeelayso maaragtay dadku ma iska yahay laakiin wax daliil looma hayo jazaahu allahu khayran dhegeystahan wuxuu ina weydiiyey biyaha gadaasha ku furnaa ee xididada dila maxaa ka dawa ah ama maxaa sababa biyaha xagga dambe gale ee khatarta ah horta waa wax iska yimaada waxaa la yidhaahaa laba nooc bay u kala baxaan nooc waxa weeyaan waa open angle glaucoma la yidhaahayo sababta keenta lama yaqaan laakiin waxaa jira waxa la yidhahaa familiarity familiga waxa laga yaabaa in dad ka mid a dhowr qof lagu arko aabihii baa lagu arkayaa carruurtii laba ka mid a lagu arkayaa waxa weeyaan ilmuhu awow qofkii uu maaragtay awowgaha baa lagu soo arkayaa marka familiarity jirta ama waxa laga yaabaa aabbo hadduu indhabeelo carruurtiisa kala badh ama in ka badan inayanu biyihii laga helo ama hooyada oo indhabeelaysa carruurtiina kala badh in laga helaa laga yaabaa marka waa wax familiarity ah marka qofka aabbihii ama abtigii ama adeerkii ama eedadii ay biyaha lagu sheegay isaga waa riski factor buu leeyahay waa inuu la xidhiidhaa dhakhaatiirtu sanadkii mar jeekin sameeya waa dadka ay ku badan tahay ama laakiin sababta rasmiga ee keentay ilaa hadda lama yaqaano way jiraan nooc baa jira secondary glaucoma la yidhaahdo oo sababa keento tusaalehaan nabar xoog la kugu dhaco kale nabarka xoogga leh meelihii biyuhu mareen buu xidhayaa ama dhiig ku furayaa dhiiggii baa meelihii xidhaya glaucoma imanaya oo biyi baa kacaya aada u badanaya taas secondary glaucoma la yidhaahaa iyadu wayna sida tan isma qarisee xanuun badan bay keentaa markiiba degdeg ba wax looga qabtaa inta badan laakiin kan aan isqarinaya dhuumanaya inta badan waxa la yidhaha tuugga aragga xada tuugga maada soo jeeda ku xadayaa adoon ogeyn buu ku xadayaa marka tuugga aragga xada kaa lama yaqaana sababta rasmiga ah ee keenta lama garanayo sidee loo daweeyaa waxaa loo daweeyaa pressurekaas in hoos loo dhigo for example waxaan idhi cabir buu leeyahy lagu xisaabtama cabirkaas waxa weeyaan 4 hadduu kor dhaafo qofka biyaha ku furmay hadduu ka hooseeyo biyuhu waa caadi hadday biyuhu ku furmaan waa in cabirkaa la dejiyaa 8 buu tegey dawooyin baa la siinayaa xabadda baa la siinayaa dhibic baa la siinayaa hadday ku filaato soo dejiso taasuu wadayaa haddii xabaddaas taxtar weydo 2 laga dhigayaa haddii wax tar weydo 3 baa laga dhigayaa haddii wax tar weydo qalliin baa loo sameeyaa biyaha waa laga xidhayaa ama dadka miyiga ka yimaada dawooyinkan waa dawo qaaliya dawooyinkan biyaha loo isticmaalaa way ka qaalisan yihiin dawooyin kale $12 $15 ay noqon karaan marka maadaama qofkii aan awoodi karin inuu joogto u qaato qofka waa laga xidhaaba waxa la 2 bilood dawada soo qaado marka biyuhu ka yaraadaan soo noqo waa laga xidhayaa marka waa laga xidhaa halkaas isku daayeen maanta waan garanay su'aal muhiim ah wuxuu ku leeyahay dadka waaweyn indhihii oon xanuunayn hadday ilmaynayaan haddana arrintaa haddii carruurtii la yidhi cudur ma aha qof weyn oo haddana ilma ka daadanaysa indhihiina xanuun aan dareemaynin arrinkaa maxaa lagu macnayn karaa jazaaka allah khayr qofka markuu weynaado 2 arrimood baa isugu darsamaa waxay ilmadii la soo saarayay way badanaysaa dalooladii ilmadu galaysayna way soo dhaadheeraanayaan ma islaamaha inta badan 2 naas baa halka ku yaala yidhaaheen 2 naas waa tuubooyinka ilmadu gasho marka hore jirkay la sameyn yihiin marka dambe kor bay soo dheeraadaan marka 2 dalool marka ilmadu galayso
afkay saa isu saaraan markaas ilmadii nuugaan inta u dhaxaysay nuugayaan inta markastoo ilbirqsato inta yar u dhaxaysa labada dalool ay nuugayaan marka qofku markuu weynaado dhowr rood baa iman kara bahladii baa seer dhaafi kara maartay labadii dalool ayaa seer dhaafi kara inta soo dheeraadaan waxaa dhici karta oo kale markay soo dheeraadeen dee biyi way ka hooseeyaano maartay inay biyi maartay isaga ka soo dheeraanay ka soo kormarayaan marka adigu cilladda waxa weeyaan dalooladiina sidii la doonayay drainage kuma samaynayaan oo biyo uma qaadayaan biyo la soo saaray way badanayaan laakiin wax dhibaato ah ma laha qofka waxa loo qoraa dawooyinkan ilmada yareeya maartay ee dufankana indhaha ku badiya kuwaas loo qoraa kuwaas oo qaata kuwaas kaga lantaada oo joogto ah laba dhageyste oo laba su'aalood oo isu dhow ina weydiiyey waxay leeyihiin muraayadda digriga indhaha loo qoro ma soo celin kartaa digrigii indhaha waxaase kaga maarmo oo muraayadda ma jirata waa laba su'aalood isbarkan in muraayaddii laga maarmi karo iyo haddii muraayaddii la isticmaalo inay soo celin karto araggii horta arag waa laba nooc aragga fog iyo aragga dhow aragga fog wuxuu ka lumaa qof kastuu ka lumi karaa laakiin dhallinyarada ayaa u badan intuu ka lumo qofku intuu dhallinyaro yahay waxa laga araggiisa fogaa inuu 30% noqdo 40 noqdo 50 noqdo ujeeddadu sababta keentayna waxa weeyaan indhihiisa waaweyn inta badan waxa weeyaan qofka muraayad fogaana qaadanaya marna waxay noqotaa plus marna minus markay minuska tahay waxa weeye qofka indhihiisa waaweyn oo iftiinkii la rabay inuu shabakada gaadho ma gaadhayo ishiisa ka weyn meel wuxuu ku dhamaanayaa muraayadana marka maxay qabanaysaa iftiinka bay tuuraysaa oo shabakada gaadhsiinaysaa qofkii argiisa 30% ka ahaa ayaa 100 tagaya marka qaarkood waxaad arkaysaa qof argiisa 5% kaliya yahay oo wajiga qofka arkaynin marka soo hor fadhiyo laakiin markuu xidho iftiinkii wuxuu gaadhayaa halkii loogu talagalay 100 buu tagayaa marka qofkaas waxa lagu taliyaa muraayadda inuu mar walba xidhnaado oo dhigin waayo muraayaddaas argiisa haysaba hadduu dhigo wuu khasbiyaa indhihii khasabka oo khasbiyo indha xanuun madax xanuun mirgi xanuun baa imanaya marka waxa muhiima qofka haddii muraayadda loo qoro oo da'diisuna yar tahay waliba hadduu carruur yahay aad buu ugu khasban yahay laanna waxa weeyaan ilmuhu markuu yar yahay 5 jir 6 jir yahay ayaa maskaxdiisu qaybta aragga oo kortaa haddii marka isagoo u baahnaa muraayad loo qoro aan muraayadda qaadanin qaybta aragga ma korayso qofkuna indhihiisu wuxuu noqonayaa lazy eye waa la baadhay indhihii caafimaadkooda 100% laakiin arag ma laha maxaa keenaya ishii baa lazy eye noqotay ama indhihii baa lazy eye noqdo markay kori lahaayeen yaani korin marka waxa muhiim ah carruurtu intay yaryar yihiin haddii muraayad loo qoro muraayadda waa inay qaataan haddii ilmahaasu qaadan waayo muraayadda hadhow markuu weynaado muraayadda waxuma tarayso waayo santarkii aragga keeni lahaa ayaan korinba oo halkii la rabay aan gaarin meeshii loogu talagalay qodobka labaad waxa weeyaan qofku wuxuu hadduu 40 kar yahay muraayad taas waxa weeyaan aragga fog ee minuska ah waxa jirta arag indhahooda yaryar yihiin aad yareen dadkaas waxa loo qoraa muraayad plus oo aragga fog ah aragga dhowna markuu 40 gaaro qofku wuxuu u baahanayaa muraayad akhriska u baahanayaa inta badan 90% dadku uma baahdaan aragga dhow ilaa 40 ka gaaraan 40 markuu gaarana qofka haddii araggiisa fog uu fiicnaa muraayad waa compulsory inuu qaato aad buu ugu baahanayaa hadduu iska daayo wuu yeeli karaa laakiin wuu khasbayaa khasabkaasaa keenaya marka indha xanuun badan keenaya daal badan keenaya qofka waxaa laga yaabaa markuu 2 beeg akhriyo inuu ku daalo markiiba laakiin hadduu muraayaddiisa xidhan lahaa muraayaddaas inay anfac lahayd oo uu maartay muddo sii haysan lahaa waa soo dhadhowya waqtigii wuxuu i weydiiyey dhageystahani marawaxadda ayaa indhahayga dhibta maxaan yeelaa indhaheen waxay leeyihiin ilmo dufan leh oo borotiin leh marka dadku ay ku yar tahay waxa weeye in yar baa u hadhaysa for example intii bay ka qaadanaysaa marawaxaddu ilmadii dufanka lahayd borotiinka lahayd ayay kaa kala yaraynaysaa haddaad full tahayna waxba kuma yeelayso haddii marka hore ilmadu kugu yarayd dufanka leh borotiinka leh intii bay kaa qaadanaysaa marka waxaad bilaabaysaa inaad maartay inaad isku qabqabato oo aad u dareento iyo dareemaysaa marka waxaan dadka kula talin lahaa inay hurdo wanaagsan seexdaan habeenkii qofka hadduu habeenkii hurdo wanaagsan seexdo
indhihiis intaad hurdo ilmada dufan kale ee borotiin kale berri ay ku shaqayn lahaayeen ayay soo saarayaan indhahaagii waan gartay wiil baa wuxuu leeyahay markaan carruurta ahaa waxaan ku cayaari jiray cadceedda oon marba fiirfiirin jiray aragtidaydii waxbay u dhintay maxaad igula talan lahayd iminka inaan yeelo su-aashiisa labaad waxaa jirta buu yidhi markaan hareeraha eegis idhaahdo hadh yar baa indhahayga la warwareegaya oo ay hor socsocda hadhkaasi wax dhibaataa miyuu u leeyahay indhahayga qoraxda oo la eegaa indhaha wax weyn bay yeeshaa weliba haddii qoraxda madoobaataa ugu daran markan kale qofku isagaaban ku xamili karin inuu cabbaar eego ay wax ku yeeli karta shabakadda laakiin markay qoraxda madoobaato waxa weeyaan rays bay soo daysaa shabakadda barta wax laga arka gubaya marka markii aad qofka saawiga sankiisa toor arkaysaa santarka halkaasi ka gubaysaa markaad ka soo jirto waxa laga yaabaa qofka wejigiisa ma arkaysid hareeraha qofku waa arkaya laakiin wejiga ma arkayo marka waa khatar weyn weeyaan qoraxdu hadday madoobaato in la eego indhabeel khatarna way keentaa oo qofku xitaa akhriskiisii wax ma akhriyi karo lanna waxa meeshii uu wax ka arkayey santarkii wax kama arkayo hareerahana waxuu ka arkayaa ee barti baa gubatay oo dalooshatay wayba dalooshamaysaa rayskaasa daloolinaya marka waa khatar weyn qoraxda in markay madoobaato in la eego qoraxdan kalena in la eego ma wanaagsan iyana dhibaata keeni kartaa waxa laga yaabaa dee in la cabira noqonaysa waxa ka dhiman la eego laakiin maaragtay dhib badan bay keentaa qoraxdu qodobka labaad muxuu ahaa halka waxaa jira waxa la yidhaha flies indhaheen xab baa ku dhex jira xabka wuxuu sameeyaa waxyaalo duqsimoodo kuwa soconaya marar badan markaad meel cad eegto ama caanaha eegto oo kale ama aad warqad cad eegto waxaas dhibaato ma laha mana baaba'aan dawna uma baahna waxna kuma yeelayaan mustaqbalka sheekh maxamed wuxuu weydiinayaa dhanjafka xanuunkan dhanjafka aynu idhaahno dadka qaba had iyo jeer aragtidooda caad baa ka horeeya maxaa sababa horta dhanjafka wuxuu ku yimaadaa xididada ereyadan oo dhan isha xididadeeda dhinacaasoo dhan xididadooda ayaa mar horta dhiigu ka xidhmayaa markuu dhiiggii ka wada xidhmo araggii marka wuxuu noqonayaa arag heerheera ilaan ishu dhiig bay ku shaqaystaaye araggii shucaab waxbaa ku furmaya waxa hilaacaad moodaa ku furmaya wac ama araggii baa hoos u dhacaya aad hoos ku dhacaya cabbaar markii dhiiggaas xidhnaado ayaa haddana xididadii hal mar bay furmayaan xoog u furmayaan dhiig badan baa la soo deynayaa oo qofku madax xanuunkana ku badinaysa aad ugu badinaysa laakiin markaa wixii bay ka ba'ayaan marka dhanjafku bilaabanayo calaamadiisa ugu horreeya waxaa ka mid ah in aragguna uu saa wax u noqdo dadka qaarkood baaba araggu aad waxyaalo weyn ee dhanjafkaasi gaarsiiyaa marka waa qayb ka mid a dhanjafka ayay ka mid tahay waxa weeyaan xididada xidhmaya marka hore su-aal kale oo dhegaystoyna weydiiyey wuxuu leeyahay guurka faraha badan indhaha wax ma yeela guurka faraha badan dhallinyarnimo keenaa marka indhahana qofka dhallinyaro ka noqdaa jirkao dhan dhallinyaro ku noqdaa waxa weeyaan wax dhibaataana ma keeno insha allah runtii guurka horta waa sunnihii ambiyada weeye waa sunnaha ambiyada guurka faraha badani haddii uu nolosha bini aadmiga iyo muslimiinta dhib ku leeyahayna rasuulkaa ka digi lahaa laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ambiyada qaarkood baa 70 dumara qabay qaar baa 100 qabay shareecadooda u banaynaysa marka haddii guurka faraha badani uu dhibaato keenayo mudankii ilaahay soo diray baa ummadda uga digi lahaa marka qofku de haddaanu isagu mas-uuliyadda ka soo bixi karayn waa baab kale wain khiftum an laa tacdiluu waaxidatan inaad mid ku adkaysataa waa baab laakiin haddii aad kartidaa leedahay su-aasha ugu dambaysa ee ay soo weydiiyeen waxa weeyaan mid baa ka dambaysa xasaasiyadda ama indhaha xasaasiyadda ku dhaca inta badan maxaa keena maxaase lagu daweeyaa ya waa iyadoon labadaba isku xasaasiyaddu bay ka wada hadlayaan بسم الله الرحمن الرحيم xasaasiyadda waxay ka mid tahay waxyaaba ugu badane dadku aad u dareemaan waxaa laga yaabaa qofku noloshiisa o dhan inuu dareemo aniga waan leeyaho waxaa laga yaabaa inaan habeen walba kenya cuno marka ama samboor qofka ha ku keento ama indha cuncun ha ku keento ama jirkaba xasaasiyadda ha ka qaade
xasaasiyaddu aad bay u badan tahay waana cudurrada aan tegayna soo noqnoqda iyo ka mid tahay waxay ku badan tahay carruurta da'doodu yar tahay inta ay 15 sano ka gaarayaan iyo aad ugu sii badan tahay indhaha marka dawooyin loo qoraa jira oo qofka aan waxba yeelayn iyo qaar wax yeelay labadooda jiraan marka wax muhiim ah in dhakhtarka lala tashado laba nooc oo dawaa loo qoraa mid xoog badan oo markiiba xasaasiyad ka jaraysa laakiin haddii muddo dheer la wado dhibaato keeni karta iyo mid aan dhibaato lahayn oo qofku muddo dheer wadi karo laakiin aan awooddeedu xoogay yar tahay marka dawooyinkaas waa la siiyaa allahu mustacaan waxyaabaha xasaasiyadda keeni karana qofku inuu ka hortagaa muhiima waxa ugu badan ee keeni kara waxaa ka mid ah dhaska iyo siigada iyo cuntooyinka qaar iyo cadarrada iyo waxyaabahan dhaashyada la marsado ama silidaha ama saabuunaha inta way keeni karaan qofku marka inuu ama cuntooyinka la cuno qofku inuu kala ogaadaa wanaagsan oo kala barto wixii uu xasaasiyadda ka qaadayo oo markaa wuxuu iska ilaaliyo wabillahi tawfiiq su-aasha ugu dambaysa aan doctoorka weydiinaya waxa weeyaan dawooyinkan dhakhtar la'aan la isticmaaliga indhaha maxaa tala ka bixin lahayd muraayadaha la qaato oo hadhka ah oo aan dhakhtar kuu qorin muraayad ahaan uun dadku ay ugu xaragoodaan iyagu wax dhibaataa indhaha ma u leeyihiin bismillaahi raxmaani raxiim dawooyinku laba oo kala baxaan indhaha loo isticmaalo qaar warqad la'aan baa la bixiyaa oo farmasiyada bixiya waa noocan indhaha qooyo kale hadda dawooyinkan aan leenahay indhahii qooyaan oo dufan ka dhigaan oo qaleelka ka bixiyaan kuwa looma shardiyo inuu dhakhtar qoro tusaale ahaan adiga lagu qoriyaa ama saaxiibkaaba maartay indha qaleelkaas dareemaysaa farmasiga tagaysa ka soo qaadan kartaa waayo iyagu haddii weliga aad isticmaalayso wax dhibaato ah ma laha ama dawooyinkan kale ee antibiyootiga ah ama steroidka ah ama dawooyin kale indhaha loo isticmaalo waa khatar qofku inuu iska isticmaalo ama iska iibsado marka dee caalamkana marka la eego farmasiyada kala sheega kuwana lama ogolo kuwana lama maartay qofku uu qaadan karaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye kuwan qaleelka indhaha ka beenaya maartay dufanka iska qaadan kartaa laakiin haddii xanuun aad ku aragto indhuhu waa qaale wax wanaagsan dhakhtar kuugu dhow inaad u tagto oo isagu uu talo ku siiyo waxba laga yaabaa inuu dawo la'aan oo ku bogsataa way dhici karta taladiisa insha allah muraayadaha soo hadhay muraayadaha har kale dadka jooga dhulka kulaylaha ah ee qorraxdu ku badan tahay 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo inta qorraxdu ku lushay aad waxa wanaagsan ee muraayada madow xidhaan ama hadh leh laana waxa weeyaan iftiinka badan qorraxda waa ultraviolet buu leeyahay marka wuxuu soo dedejiyaa caadka indhaha gal soo dedejiyaa teed kale dareeshan iyo siigadan iyo waxaan dhacayna nabarrada ku sameeyay indhaha anagu reer miyiga wax kula talinaaba in uu muraayad madow hadduu nabarrada yeesho kale intuu nool yahay uu xidhnaado marka muraayadaha madow waa iska caadi qofku uu xidhan karaa maartay wax dhibaatana ma keenaan